dawladda Soomaaliya waa ayaan darro ayadoo ama laaluush qaadatay ama dana kale leh in shacabkeedii ay dhibaatadii ku sii fasaxdo oo ku dayso waxaan dhihi lahaa arrintaas caqligu ha shaqeeyo dadka wax garanaya ha shaqeeyaan arrintaas ha laga joojiyo jaadka Soomaaliya ha laga joojiyo waanan maqalno runtii haddaan nahay qurba joogta in ganacsato Soomaaliya iyo dadka iskala beeruhu ay doonayaan inay laaluushaan dawladda Soomaaliya si go'aankaasi dib looga noqdo nin kastoo ama wasiir ah ama madax ah wuxuu ku fikirayaa sidee hanti u dhacdaa Soomaaliya qaad uma baahna Soomaaliya waxay u baahan tahay maanta waa daryeel waxay u baahan tahay qarankood dib loo dhiso waxaa loo baahan yahay dadka maanta dhinaca tacliinta iyo in laga caawiyo caafimaadka iyo biyaha iyo wax soo saarka dhinaca beeraha iyo shaqooyin in loo abuuro ma qabaan uu qaad maanta macnaha in waqti badan la sii geliyo aad ayaad maana ugu faraxsanahay maanta inaan helo fursadan oo waliba ma arkay nuxur media uu siiyo in aan minaha ka hadlo arin aad minaha xasaasi u ah oo qusayso dalkayga hooyo bismillah horta marka hore aad u maasantahay adiga iyo nuxur team qof kastoo Soomaali way og tahay dhibaatada dadka qaad ku hayo haday noqon lahayd caafimaad haday noqon lahayd bulshadii haday noqon lahayd dhaqaalaha marka burburka qoysaska waxaas dhan marka la fiirsho qof kastoo Soomaali way og tahay dhibaatada uu qaadka uu ku hayo ani ahaan waxay ila tahay Soomaaliya sideedaba qaadka uu dishay waxa burburkan 26 sano gaarsiiyeen waa qaadkaas laakiin hadii ay tahay mid siyaasad ahaan loo joojiyay siyaasaddaanu bari waa isbedelaysaa barina wuu soo laaban karaa qaadku wuxuu curyaamiyay ama mataqaanaa aad iyo aad mataqaanaa dadka uga curyaamiyay howlo badan dana badan ay qabsan lahaayeen dhalinyaro badan wax baran lahaayeen dhalinyaro badan oo shaqaysan lahaayeen runtii aad buu mataqaanaa u curyaamiyay Soomaaliya qaadka maalintii waxa la sheegaa inay 4.5 ilaa 5 milyan ay ku baxdo maalintii Soomaaliya ay ku baxdo oo jaada oo dollar marka qiyaas hadii hal bil kaliya lacagtaasi ay umada gasho waxay noqon kartaa qiyaas horta wadankeena qaadka uu dadku ma u fiicnaba ma noo fiicna caafimaadkeena iyo oo in la joojiyeen wax fiican way walaalayaal qaadku horta problem badan uu ku hayaa Soomaaliya gudaha iyo dibaddaba maalin walba malaayiin dollar ayaa ku baxa oo Soomaaliya uga baxa qaadka marka faa'iido iyo khasaaro marka labadooda marka comparison lagu sameeyo waxaan isleeyahay khasaarihiisa badan xagga dhinaca anshaxa dhaqaalaha burburka waxyaalaha soo qaadku waa leeyahay ayadoo xaraan ay tahay haddana bulshada Soomaalida ayuu si toos ah ayuu u burburiyay markay noqoto caafimaadkii markay noqoto hab dhaqanka bilaadanimada markay noqoto dhaqaalihii marka waxaan ka codsanayaa dadka ganacsatada ah iyo dadka kale oo ku korsado familada ku nool qaadka in ay wax kala raadsadaan oo ay ku bedeshaan wax kale ay ku noolaadaan dad badan oo Soomaaliya ayaa ku nool qaadka runtii oo ka ganacsato oo carruur ku korsato ganacsato ku nool laakiin Ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa ta'ala in wax ka khayr qabo inuu Ilaahay ugu bedelo sababtoo jaadka waa muqaddaraad hadii diiniin la fiiriyo wadaadada aad ay uga hadleen maadina sidoo kale wuxuu minahan aragnay ama muuqaal ahaan ama wax la taaban karo suuq qoysaska Soomaaliya u burburiyay lacag badan ayaa ku baxdo familyo badan ayaa maanta ku kala maqan wiil iyo hooyadiis iyo minaha isaga aabiis ayaa ku kala maqan oo aan iska warqabin run ahaantii aniga qisooyin badan ayaan hayaa oo dad badan oo Soomaaliyeed ku dhacday arintan joojinta ku salaysan joojinta maanta in la joojiyay anu waa jeclahay waan soo dhaweynayaa laakiin waxa aaminsanahay inaysan noqonayn wax sii soconayo oo loo qaatay dhibaatada maanta dadka ku haya darteed inaan loo qaadan ay tahay bal siyaasadeed waxa taa nin dhalinyaro muwaadin Soomaaliyeed maalmahan waxa ka socda olole lagu joojinayo qaadka Soomaaliya sidee u aragtaa ama ra'yigaada uga dhiiban kartaa joojinta qaadka Soomaaliya bismillaah run ahaantii waa su'aal fiican ani ahaan waxay ila tahay su'aashaasi haddaan fikirkayga ka dhiibto ma tahay su'aan qaadka joojinta danta Soomaaliya guud ahaan in laga joojiyo qaadka mase ma tahay mid loogu talagalay mid siyaasadeed qaadka sidiisaba waxa loo joojiyo waa
siyaasadna mar haddii gasho waxaan wax joogsanaya ma ahan Soomaalida waxa ugu weyn ee maanta Soomaalida baabiyay ee halka ina dhigay waxa ugu weyn ee maanta loo eeyneenaya waa qaadka weeyaan jaadkuna sun weeye ciddii wax fahmaysana way iska daysa ciddii aan waxba fahmaynina way cuntaa dadka lacagta ka raadinaya lacagta ay cunaan xataa kuma aadaan xadka lacaga kale ay deynsadaan qof walba oo muslima uu ogsoon yahay xataa lagama duugo marka dadka isku dhajinayo inay Soomaaliya inta ka jaad ka soo qaadaan ay Soomaaliya geynayo أنا waxaan ilaa ganacsi kale ha u wareegeen ilaahay baa irsaaq fiican siin maxaad ugu baaqaysaa dawladda Soomaaliyeed inay go'aamadeeda ka dhabayso maxaad ugu baaqi lahayd arrintan qaad joojinta marka waxaan ahaan ila wanaagsan aydoon siyaasad ahaan loo fiirin in sideedaba bannaan Soomaalida ay dawladda federaalka Soomaaliya ay sideedaba ay joojiso qaadka marnaba kuma taageersani inay ku soo celiyaan in dib macnaha loo bilaabo Soomaaliya in qaadka dib loogu iibiyo marnaba kuma taageersanin dawladda Soomaaliya waa ayaan darro ayadoo ama laaluush qaadatay ama dana kale leh in shacabkeedii ay dhibaatadii ku sii fasaxdo oo ku dayso waxaan dhihi lahaa arrintaas caqligu ha shaqeeyo dadka wax garanaya ha shaqeeyaan arrintaas ha laga joojiyo jaadka Soomaaliya ha laga joojiyo taas dam weyn ayaa ugu jirta dadka Soomaalida ah dawladuna ha u nacdo dadkeeda oo ha fiiriso dadkeeda iyo safiirin interestigeeda dhaqaale waa dareemi karnaa Soomaaliya musuqmaasuq waa iska jira nin kasto ama wasiir ah ama madax ah wuxuu ku fikirayaa sidee hanti u dhacdaa taas aqli ma waa in loo fiiriyaa dadkan ay mas'uulka ka yihiin dantoodana ay fiiriyaan maslaxadoodana ay fiiriyaan wixii wanaag ugu jira oo dan ugu jirta dadka shacabkana waa inay sameeyaan interest-kooda kaliya iyo safiirsan in la soo celiyo waa mar kale iyo dhibaatadii in lagu soo celiyo wadanka marka sidii loo joojiyay waxaan taageeraa oo aad ugu faraxsanahay in sidii loo joojiyay loo wada joojiyo oo hawada uga baxo Soomaaliya dib ugu imaan waxaanu leenahay dawladdu ballan qaaday ha ka dhabayso qaadkana sida Soomaaliya looga joojiyo waana ku faraxsanahay waana ku taageerinaa marka waxaan ugu baaqi lahaa inay ku adkaystaan mas'uuliyiinta ayaga ah maanta mas'uuliyiinta wadanka ayaga ah ayagana mas'uul ka ah wax kasta oo wadanka dhacay marka waxaan jeclaan lahaa inay mowqifkaas ku adkaystaan waana soo dhaweynaynaa arrintaasna aad ugu faraxsanahay hogaamiyaasha Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqaynaa maanta iyaga dalka madax u ah inay arrinkaas dabagal fiican ku suubiyaan ay ka dhabeeyaan joojinta ay joojiyeen waana ku faraxsanahay waana ku taageeraynaa marka maanta dawladda Soomaaliya aad iyo aad ayaan ugu soo dhaweynayaa arrinta la joojiyay qaadka waxaan leeyahay arrinta la sii adkeeyo aad iyo aadna arrinta loogu dadaalo waxaan qabaa marka dawladda Soomaaliya maanta dawlad awood badan oo wadankii controli karta ma jirto saan isleeyahay laakiin way fiicnaan lahayd dawlad security-ka wadanka dhan controli karta oo maamulkeeda haysata inay joojiso way fiicneed waana maasantii nuxur media wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka waxaan ilaahay madaxda dalkeena waa in saas loo taageeraa oo mucaaradka la joojiya waxa wanaagsan ay qabtayna lagu taageeraa wax xumaan ay sameeyna lagu dhaliilaa taas ayaan uga bixi lahaa